بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال وسعيدكم محمد بشير حاشي مغلع السعدي السمان فنانة التاجر يكالي سعد ياسر ملا يكالي داير على سوق كالي يكالي هني يكالي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياش قيمها لما يلقستو الجوكتان وسعيدكي محمد بشير حاشي إيو وريسرة ولكن سعيدكي ظاهر عبد الله علسو أو جوجا مقالة بريدة ودنك هلن waxaa maqasheen wax badan daahir oo ka hadlaya arrimo la xiriira qabyaaladda ama qabyaaladii qabiilku waa labo qabyaaladii qabiilku waa labo qabiil baa lagu celceliyay waxaan rabaa marka inaan daahir caawa wax ka weydiiyo qabaa'ilada Soomaaliyeed qabiilka uu jecel yahay حرة مركي إيران وحكوي دي داهر قبائل الصوماليات وبي يا عضلة وأنا كنا هالضبا هلو داهر ماكو مغلى يا محمد بشير حاشي الأستاذ محمد بشير حاشي حب غليصه أنت أنا ما بغشى ظاهر وحتى هيسيدو كله أبوان سجان تفي عم بقوم الله سي ما غشاديو أنا تفي عم بقوم الله سي ولا يكسب بقوم الله هيا واتهاي ظاهر وحتى هي وريسرة بارة لنا عورك بارة أبوان لحميسته فنان وحي دون اسكو درستي dad badan oo Soomaaliyeed caawada qaar su'aalayn soo weydiin doonaan waxaan rabnaa inaan أنا أبو شير قريه كان هاي Soomaaliya hadda wuxuu ku qaybsatay 5 qabiil وايا waxaan aragnaa adigoo qabaa'ilo ka hadlayo adigoo dad siyaabo kala duwan uga hadla dadka qaarkii waxay yiraahdaan marka daahir waa qabyaaladiiste daahir qabiiladu ka hadlaa in qabiilka laga hadlo qabyaaladiiste laguma noqdo laakiin qabiilkii qabyaaladu waa kala labo marka waxaan rabnaa majaajileen aan sameeyno caawa daahirow shanta qabiil ee Soomaaliya rabaan wax ka weydiiyo qabiilka la yiraahdo digil iyo miriflaan ku bilaabaynaa ee dega koonfurta واتهاي داير قدك كقوي وضل بينام سيفي عم بكون مغا داير هاي ما غشا سيفي عم بكون مغا داير هاي هذا سودا سؤاشة هاي قبيلة إيو قبيلك والله قبيلك إله نقدر قبيلتنا واحد قفك أو قاصل
in sacado habar gudub baa tahay ilaaha kaa dhaliyey laakiin arrimaha mar sii kala gasho sii kala qaadaaliya daahiro haye bal su-aasha aan qabta soo daa bal maanta marka guud waxaan ku weydiinayaa shanta qabiil ee soomaaliya waxay u qaybsatay hawiye digil iyo midhifle dir daarood iyo beelaha kale oo bontifafka la yidhi wax bontifafa kolle ma jiraan waa beelo siman yaa u jeceshahay shanta qabiil may waxa qofta qabiil kasta waa jecel laakiin adigu waxaad ka hadlaysaa ma hawiyaha yaa ugu jecesha oo kale for example ma daaroodka oo kale reeraha macnaha yaa ugu jecesha daaroodka oo kale hawiyaha qabiilka la yidhaha hawiyaha waa hawiyu ma waxaa u kala qaadnaa group A kow labo ma ka dhignaa mise waxaa ka dhignaa kow labo saddex kow labo saddex waayahay hawiyaha kow qabiilada hawiye waxaan u jeclaa sheeqaasha qabiilka la yidhaahdo الأول مرة لبو وعاود جعلها هناك اللي هذا أبكي قال جعل سمو سدح وحنو جعلها قبيل الجورانكا سفعا وعاود جعلها شيء قال جعل يا جوران بقرتوين يا جوران بقرتوين دي بعر بعير بقرتوين سنجعل الجوران بعر بعير ما لك بعر بعير ما لك بقرتوين الجوران وين دارتك هي دارتك الأول مرة الدرويشية دروس دلبانتها ninkaas waa niman Soomaali dhaba way wuxuu doonay iska ahaado ama garow ka biya ma hargeysa ka casheeyo iyalkadood laakiin waa niman geesiin oo dagaalamo waa nimankii ugu horeeyay taariikhda lagu garaac diyaarado waa nimanka sida Cabdulla Xasan Garab siiyay waa niman runtu wajiga ka saarayo xayyi ama fahamtay marka ari dhulbaantaha daaradku u jeclay labo waxaan u jeclaa ogaadeenka ku yar oo maxalliga قولينك حول دبقوديغا oo ku jira dabaqoodi kooxda dabaqoodi laakiin de qabiil kasta qofku waa iska leedahay laakiin ayaguna waa niman fiican ma fahamtay nimanka leedo ogaadiniya al-absamiya saddex hadaa ay rabto waxa waayay nimanka la yiraahdo lilkasa saddex way kow ogaadin kow dhulbaanta labo ogaadin saddex الكسية الحرية ما فهمت واضح دقلي مرفلة أو بفضل دقلي مرفلة قبل كل اللي يروح نرجع لها قلدي أما قلدي سيفع أو إلا قصح دير أنا بقى أرجع قصح دير وكاسي بعد ديري مره ديك اسمعي كسوقله وي كدلتي حلبان لول عبد آدم قبل علمها أول شيء علم الجوس قال لي قال لي قبل كاسان لول كاس برا أول شيء كسر عاركي يمن أب في عنوي لبا لسان تنمك اللي هذا نمك في عن أنا وجاء سدح نمك اللي هذا هضمه دقيقة من الفلو أنت أصلا أنا كنت منطقة أنا منطقة معناها waxgalkooda iyo siday saameyn u leeyahay horta qabiilka galilahleeda ugu tira badan waa majority dhulka ay haystaan hada aragto iyo say dadku u jecel yihiin xashay xarifaan u yihiin waa yaabe waatahay dila ku soo hartay saddex hawiye saddex daarad saddex digili min saddex dir soo hartay درت الأول مرة حوي سمرون سعيدية سمرون تقلدي سمرون سيف عم بوقعنا بروفيسور عبد إسماعيل سبتري قال بورسوي قال بورسي سيف عن قال بورسية الأول مرة يا شيخ إسحاق ابن هاشمية نمبر 2 نمكن لا راشع إسحاق نمبر 2 تفع نمبر 3 وحجعل نمك اللي أكيشة
قبيلك أكيشها هذه متقانا أي سنة حاجة على بحث إيو عبد متقانا محمد أمين إيو أي كذا شين يضد عانه التقانو متقانا هاي كاس أكيشة سفعا كيشة وكل إساق يا كتير سنة في الإساق إساق كبتر سنة وأنا من نقول كاس توم يقومستي وبعدين يجين أكيشة اللي هذا ما في عنوي ضد في عن إيرس ما لو في عنوي قطرت أوي سفعا رجع الدور هكذا شو مركز تهلاور كود في عية نمك اللي جرويني سفعا جروينه أنا واحد رجع لهاي نمك اللي شيل متقانا شيل سفعا بنوغانا شيلوني من حي وي دجال كان يقانو نبض أنا يقانو في عوين مقاسي ما فهمت سفعا خير شباب الله أنا وأرجع له نمبر 2 شيل يوم يا مكانه ها بلاه بنادرية الأول مرة وحنقول جعل هاي نمك اللي يراهدو وحنقول جعل هاي نمك اللي يراهدو بندبو كاستي سفعا بندبو وحكذا شيء سان متقانا الأكتة هاي يركي اللي هذا عمر شريف جاك أو هذا قدوميه هذا مدح مروينا أيو أجاكسي كذا شو نمن حرفان وركتان أنت يا كصبح كوفيندا كذا شيء أنت كوفيندا بندبو مسوى مولد كوفيندا المولد يا عمريها تعوقس لكن هذا أجاكسي واحد هو عمر شريف جاك هو هذا حرفان هو بدل أو تان يا كذا شيء مولد متقانا نوكل بندبوغا فهما أحمد نور تانا دي قبل حلبانات هيدي يا كذا عطي تراجسيو ما فهمت مركو وقت لسه قري شريف جاكي ده تالنت لسه قري ومسرح واي قبل هذا كميلة وجع له على شاشية كنت المركة على شاشية حرفان واي على شاشية نمكن لا مرتي شاشيدو نمن حرفان وهل اللي سوكها قبرية شاشيدو لحتى محنا يبقى حيدا قلنا وقتها مركة أنت أصلا أدو كسو كاب قبيلة هبينك الله بعدنا واسيكا قاعدين الريرها سيكا قاعدين نهور كثير درنا نجا هوستو قرينا أبدالك هوستو قرينا درنا وقصة نقرنا وي وحكى أما أنت وشكلنا كجع هاي شيء قال جعل يو قبل كلا يوها سدحان الجوران بقرطيري تمت الجورانية محاكو جعلات الملك الظاهر وسدحان محاق قبل ذلك شيخاش أطو وأن من علماء وحبرشته في عن وعلى ضدك قد يدهان هوين مدو أي كو علقت هوين الجوران كان وأن منك بقرطيري ها حتى قبل كذا أكيد سيد شباب الله هو صقر أنتيو بقرطيري الجوران بقرطيري قد تشجع التنليست لباس لما أنا وهوي أهاين مركي عدي قندرشي بكرة الجوران هستي الجوران قندرشي كحلي وجوي مركي وأنا مسيداس وأنا من علماء الدين حتى جاء وكاسا كحدي يقولك وحكب لو ده حمل القرآن عقص مركي وأنا في عن والشيقاش وحداد أتركتكم يبسني ده هذا كوا حنا ملاها نسكشيك تلامر والشيقاش شيك إذا شيقان النهائي شيقاش يكب عنه أدرس النهائي هو حساس وحياة أصلا برا لكن مركي الله في الشنو ممكن لو بقي له وقت وعدد قتلع وطبعا ما فهمت كل يبي ما يان تفعل هذا بقرطيري ما بقرطيري الجوران قال جعل سمو نوان نمكي سيال ما تقانا هو يهرق وجيسن قال جعل كان هذا قال جعل وي أو سكا إلنا وحكونا هاي تفعل مركي واقع سامح عن بشير ساسا كو جعل هاي قدو بيرسينا وحانو جعلها درتا وأن من أقول له أو أنت بدل مسكحة ذي الجليان إني أود كذا خبران ذكر وخبران علمي أقانتي مشغول كيين هالكاسي لسان متقارنات كمسكحة يكسر لسان حاجة علمية يساق أنا وحاول جعلها وادت كفي عن حاجة قابن حيصدق ما فهمت أو مركز سياد بريدة يا كورنتو آد متقا وحقوا قابنين متقانين متقانا ذكر الرسالة لسوا أوريو جميسي لا شك إيو حاجة حضارة البحر ماذا يسكت بريدة كفي عين يو حاجة سقني ماذا والله عكتو وستين كان ساقا كامع عشان يوكلي بيها كنت قال قالوا كلية وريا هو ما فهمت
akiishahana waxaa ku jecla waa niman واتاي hal abuur leh oo dad fanaaniin iyo abwaaniin ay ka dhasheenoo runtii masraxa aad uga soo dhex muuqday واتاي ظاهر داروت كلام كوسو نقولنا ogaadeen iyo dhul mahanta iyo leel kasta inkastoo qabiilo waaweyn ay yihiin haddana marka ilbaxnimo laga hadlayo iyo horumar daarood dadka qaar waxay soo hadal qaadaan beesha ma jirteen almajeertiniya ma jirteeniya beesha ma jirteen ama ismaan maxamuud ama cumar maxamuud ha noqoto ama maxamuud salaam isku yiraahdo inkastoo laftigooda dulmi badan iyo cabasho xoog leh ay ka dhex jirto qabaa'ilo ma jirteen oo awood leh oo tiro badan oo gacan bira lagu hayo ay jiraan maxaa ku daro weysay mise wax colaad kale iyo wax kala jira maya majeerteenku dad ilbaxo xadaariyahoo mataqaanaa wax qabsanaayo oo isku duuban oo mataqaanaa cadkooda soo dhacsana way yihiin laakiin aniga almajeerteeniya iyo maryaxaani un baan sababtan ku sheegaya aniga waxaa u baahanahay qof ninka majeerteenka markii la ninka ogaadeenka heela jooga ken etoobiya ka dhahan way u dhiibeen waxay leeyihin hooh ma fahamti ninka majeerteenka gabadha uu abtigu u yahay kama xishoonaya waa kala goynaya laakiin ninka dhulbahantaha ah haddii hadda buhoodoo kalanto qaybna etoobiya gumaysiga etoobiya haysta qaybna waa dhinacan moogtahay haddii ninka dhulbahantaha lagu yidhaahdo waryaa etoobiya uu ku yidhahdo hebel hebelkeen markiiba kan etoobiyaanku kala goynaya asuu ku leeya waryaa waa idab darantahay meesha ka soco ka buldhe tug iyo xunka ah macnaha waa nin soomaalinimada ku dhaadanayo calanka ku dhaadanayo oona haba yaraatee macnaha aan labalabayhinoo geesiya wey waa niman gumaysiga u nugleyn waa nin haddaa u tagta soomaalinimo ah ku hoos noolaa karto oo soomaalinimo kugu dhimanayo kugu difaacayo waa nin haddaa tiraa waryaa qoriga soo qaada maanta aan dadka gumaysiga aan la dagaalanay aanan ku dhehaynin ree hebelata horey qoriga qaadanaya waa dad ku dhacle dhulmaanto ma fahamtay ogaadeenkuna waa kuwa rag ka mida ay 50 sano 60 sannadood la dagaalayaan xabashidu ay dhagax ka tumayaan oo ogaadeenku rag hadda geesiyaala ka dhashay maxamed abdul xasan kamid waa taqaan taariikhda marka saasaan mataqaanaa marka aan leelkasuuna waa la dabeecad ninka leelkasaha ah wax kasta ha dhacdo si kasta adiga isugu haysta ama hawiidaarad isugu haysta ama reernimo kale isugu haysta ninka leelkasaha hadday dagaal tagtana waa nimanka ka dagaalama dhulka mudug ka dagaalama ama puntland ka dagaalama geesiyaasha ah waa ninka keliya ee ku dhac leh aadaatiya nimankan aan mataqaanaa xabashida ee qulubka iyo kenyaanka aan dhehatoon markiiba qorigiisu soo qaadanaa diyaaru ku yahay isaga si kasta asaga qabiilka u jeclaa sax waa qabiilka ka dhasho jecel yahay laakiin ma aha dad gumaysi kalkaalka ah ma aha ani marka waxaan u xulanayaa dadka gumaysi kalkaalka ayaanan jeclayn oo aaminsan qadiyadan mataqaanaa aaminsan isaaqa waxaan u soo xulanayaa waxaan u soo xushay xagga ilbaxnimada iyo qabanqaabada iyo mataqaan saqibnimada laakiin xagga kale xitaa kuma fiicna iyaga laftooda mataqaanaa marka ku leeyahay laakiin waa dad aan wax la cunayso oo xadaariyo mataqaanaa ku qabanqaabinayo oo suukaa dubaridaayo intaas kaliya laakiin iyaga laftooda reere kamid ahaa jiro oo gumaysiga u nugul ma fahamta hadda garxajiskoo kale nimanka isaaqa lagama yaabo nin garxajis inuu gumaysi kuu dhiibo nin arab oo kale u tagto arab oo isaaqa lagama yaabo waxa inuu kuwa safaado xabashi iyo u dhiib iyo waxa waa ka dhintaa waa iskala noolaanaysaa weligii hadduu madax bannaaniyi sheeganaya kala go iyo waxba wixiisa iskala cunaysaa waxaas kalama jecla waa dad iska mataqaanaa saas soomaali dhaba wata daahirow waxaad tahay nin suxufi ah siyaasiyiin badan baad baaritaan ku samaysaa dabagal ku samaysaa corruption musuq maasuq isdabamarin dhibaatooyin tacaddi waa soo bandhigtaa marka sidaa u jeceshahay qabaa'ilaadkan saddexdan oo aan ka soo qaadanay miyaa arrimaha siyaasadda aad ugu lafa gurtaa mise markii bahashu siyaasad ay timaado nimbo waa waxa qabatay hadda markay siyaasad timaado adiga og tahay aniga waxaa kalama jecla siyaasad markay timaado qofka tuugaay waxa weeye siyaasigu dantiisu buu egtaa soomaaliga danta ummad soomaaliyeed ma eego siyaasiyiinta caalamka danta dalkooday ka shaqeeyaan dadkooday ka shaqeeyaan adduunkay usoo dhacaan kuwayna annagayna dhacaan adduunkay noo dhacaan ayna siiyaan xaquuqda aan leeyahay aniga wuxuu doonayaa inuu cunug kala siiyo kenyaan ama etoobiyaan marka aniga xaggaas uma eega laakiin waxaan ka wadaa majority-ga adduunka la qiimeeyaa dadka majority-ga qabiiladaas ka dhashay ayaa dad wanaagsan oo duntoodu ay fiicantan ka wadaa marka ani ma qiimeynayo laakiin dad majority-gan qiimeynaya siyaasiga waa shaksi laakiin dadkan waa jamac wey waa qabiil dhan oo soomaaliyeed wey markaan
qofka siyaasiga ka sheegay macnaheedu maaha inaan qabiilka necba ama wax ka sheegay laakiin waxaan fiiriyay dadka dunta laga hadlaya واضح قبائلات قار ورتان جرا markii siyaasaddu ay noqoto shay dad badan la daahir abgaal buu weeraraa maanta kuwa marxaan buu weeraraa ma qofkii madaxweyne noqda baa saas u weerartaa daahir oo maswax kala jira horta weerarku abgaal kuna mala marixaan kuna mala majarteen kuna mala habal guustuna mala kursiga leh kursiga cidda ku fadhida ninka uu yahay ay markasta cidda ku dhacaysa kursiga nimba ku fadhiyo laakiin qabaa'ilku ma fadhiyo hadda anigu inta waxaan ka hadlaa anigu ninkaasan ka hadlaa iyo daalimiinta ku hoos nool waxay yiraahdaan ninkaas oo u dhashay marixaan ninkaas oo u dhashay abgaal ninkaas oo u dhashay haween ninkaas oo u dhashay daarood hadda anigu asaan u abtiriya anigu yiraahdo daarood kama yiraahdo waxay yiraahdaan ninkaas oo u dhashay marka ninkii abtirsigiisa daarood ku arooraya ama haween ku arooraya ama dirow ku arooraya markaas dadkii waxay ku leeyihiin war maxaad ka rabtaa dir macna ayaga meesha ugu dambeeya dhawaqaasay soo qaadanaya marka waxa weeye qofka isaga qabiilka ah qabiilku isaga ma aha qofka aniga marka qofka u soo qofkaas weelaa qofkaas identity-ga lagu gartaa wuxuu yahay qabiilku u dhashay raas aan raaciyo wata arrimaha siyaasadda daahirow maalmahan waxaa socday mooshin xoog leh baarlamaankii inkastoo aan ku kala aragti duwannahay aniga adiga xildhibaanadii baarlamaanku waxay leeyihiin 6 sano isbaaro baarlamaanku ay hortaalay isbeddel baa la rabaa baarlamaankii awoodiisii nin baa isku koobay wax muuqda ma qaban bal arrimahaas baarlamaanka maxaa xog ka haysaa baarlamaanka waxa weeye waxa loo socdo waxa weeye waxaad arkaysaan ma waxa loo socdo waxa weeye inay dhulka balad xaawo qaadato mataqaanaa Kenya in dhulka Soomaaliyeed ee aatay qaadato mataqaanaa Ethiopia in dadka Soomaaliyeed ee Ethiopia ay doonayso loo dhiibo in DP World ee dekedaheena la wareegto aniga waxaan arkaa jawaari xilligan waxa lagu haysto in saas tahay anigu waxaan u arkaa waxa loo socdo jawaari inay saahin ay tahay in xildhibaano badan oo baarlamaanka ku jiro la doonayo in xasaalada laga laabto jawaari iyo guddiga hoosaadka mataqaanaa baarlamaankuna ay diideen sida marka horeba la soo dalbaday aniga waxaan u arkaa in kooxda farmaajo ay doonayso inay kasta gudoomiye iyaga ka amar qaata oo mataqaanaa waxay rabaan u fuliyay sidii ku qoreedba heshiiskii qarsoodiga ahaa confidentialka ahaa ee danta qaranka loo bixiyey oo la yidhi aan wada dhammaysano gudoon baarlamaanku ha meel mari waxaan rabno marka aniga waxaan u arkaa waxa socdaahi wax gumaysiga loogu loogu adeegayo dad Soomaaliyeed ay ku jirin aniga waxaan arkaa madax aan danta ka hadlaynin mataqaanaa dadka Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ay u shaqeynaa shay madaxda danta aan ka hadlay jawaari hal sano oo qayr ra'iisul wasaare uu ahaa gudoomiye baarlamaan buu ahaa waxaa dhacay qaladaad waaweyn hadday ka mid ahayd xasuuqii soobe beriire haanta dheer dhiibistii qalbi dhagax oo xukuumaddu ay sheegtay in argagixiso uu ahaa weerarkii cabdiraxmaan cabdishakuur weerarkii cabdi qaybdiid intaba jawaari waa ka xunnahay xataa ma uusan dhihin qaarkood markii laga reebo weerarkii sooba uu ka tacsiiyey inta kale waa ka xunnahay xataa wuu dhihi waayey marka khayra intaasuu joogay markii isaga la qabtay jawaarigii intaas aanu ka hadalo tacsi hal mar ka tacsiyo waa ka xunnahay dhiwa markii isaga la qabtay miyaa baarlamaankii qalqal iyo weerar lagu qaaday mise baarlamaanka isbeddel u baahnaa maya aniga kumil jawaari waa wadani weligiina ma dhihin aniga jawaari waxaan u aqaanaa nin keligii taliya oo qaa'ina wadana oo dalkan muddadii uu joogo ka shaqaystay ayaan u aqaanaa laakiin qabiilka uu ka dhashay raxweynta marka la fiiriyo odaga ugu macquulsan weey haddana marka dhinac kala fiiriyo macnaha wuxuu sameeyey arkiifi baarlamaanka u sameeyey wuxuu isku wadaa labadii garab wixii mucaaradkii muxaafadkii isku wadaa macnaha wuxuu leeyahay runna ha sheegin beenna ha sheegin waxa sheegtana ha waayin falsafadaas isticmaalaya waxaan annagu diidanahay xilliga lagu soo beegay mooshinka jawaari ayaa qalada macnaha maalmo kadib markii DP World la eriyay ayaa mooshinkiisa la keenay macnaha waxaan looga hadlaynaa oo looga hadlaynaa aaqto oo looga hadlaynaa qaladaadka dhimista qalbi dhagax la leeyahay jawaariya waxa hor taagan ayaa waxaan u aragnaa in waxa loo socdo jawaari ay saahayeen xildhibaano kale wadaniyiin oo baarlamaan ku jiro loo socdo ayaan u aragnaa oo ah weysha gowrac dibiga ku qoos qaatay marka jawaari uma arkin wadani weligiina uma arag jawaari hadda markuu ugu dambeysay qorqortaro galay taliyaha nabad sugidda isaga la siiyo loo magacaabo inuu isaga wata la keenay meesha laga dhigay marka jawaari qofku yaa aqaanaa indaas uu ka qaban maayo wadani saaka dhigi maayo aniga waxaan aqaanaa oday qaa'in wadan laakiin
قائل ودنكي أيا لفتيسة وحوي رسولك صلى الله عليه وسلم لبدي ومركز دقارة إلى هو يستكن صاحبه كواس كلا بركسي بركة حنا أسمع الوفيري كوا كله أيا كسي قدر مركز إسقى هذا الضوء كل دقيقة هاي هذه أسقى ماشي لقصة على مركز وحوي ضنكي ولا حاليا مركز أنا انترستي قبل هذا الجوار أو لا الجوار إنه جوي وحوي جوار يجي كسر هرجة مركز دنتو يوديده أوس حياة مركز أنا وعالمنا جاب كاسكرنا ما هي المتقنا إيه أنت دي بيورد يصير يتموي أنا قلت جوار ما قبل الجعيل جوار ونس نعرف الجعيل لو ما قبل لكن كل عبد القادر الله ويري عبد الرحمن شكور ذاك السيال لمي بري راوي وحي كدعي هانت دير راوي وحي كدعي قلبي دغ حاله ديبي وحي وسودان ما تحدي جوار هذا لغا قاد عبد حاشيه ku xigaayo loo gudba abshir buqaari ku sii xigdo loo gudba marka halkaas istaag aan ka dhigaynaa sheekada isbaaradan baarlamaanka sabdiga ku agtaa wala qaada insha Allah jawaari uu baxaya aan ku sheegayo jawaari marka runta ku sheego hadii xoog hadii ninka la xoogayo leewar xawil qori roos qalabi ugu laakiin jawaari cod looga adkaama cod looga adkaama jawaari inta loo xeelada ku baxo jawaari ama xooga ku baxo ama xeelada ku baxo baarlamaanka in laga saaro والوا غير مسؤول انا اقل كي برلمانك ان لو شير نينك ديداي او حالنا دلبداي هو غير مسؤول waxa ku soo sheeko Fahad Yaasiin iyo ku wuxuu tuugada ah u shaqeeya mataqaan gumaysiga waa lagu sheegay ma aha sheekh ma aha wadanina ma aha jawaari waa lagu sheegay laakiin wuxuu ka fiican yahay farmaajo ka fiican yahay shaarib catiir moogi farmaajo waxa ka katib badan walaashi إدري محمد عبد الله فرماجة كتب بدر نيجا التغيير صديق وقائل وضع أنا فرماجة تغيير صديق غير تغيير صديق لكن فرماجة يو جواري ما كيلادو هوله دولة دم تويل قبل قبل جوا جواري على حال هذا حل قال الجروح حوي انتهيتوا متى هذا دوبتا محطة قطرة كله أنا وحورنا دي بي وول إمارات كي لو شقينا أيو أنا وحورنا ضلك إن لو شقيه اللي جش شقيسنا أيو أنا وحورنا كينيا كي حبشيد الربطان كود الفلنا أيو جواري وحالنا هاي هقول استقيم كهسيجو وحل يسمعها جواري إن عند اللي بدل الله لكن على الرواني إثيوبيان كوطني اللي بدل واردي جواري أنت إثيوبيا لكن لا جواري أنا هون قاعد وضع كان سيجو هذا قاعد جو ظاهر جواري وغير مسؤول قونا بحيا أما التاجر فرماجة محوية مركز جواري دو غير مسؤول فرماجة محوية سوقاء الوطن معها والفرماجة سوقاء الوطن مع محمد نك همين ما نسكت قليلة ما تغانا ولا شيء هلا عيال عكتكم بحيلة يدكم وعي موجة محوية موجة نك أتاكد موجة محوية سو توب مع موجة دار بعتير صورت فرماجة محوية سوقاء الوطن ما سو هندي كام معها سو لمون نقص سوام معها سو روح مرنوق الفوف معها سو كي موادك الصوماليين إيبي تبي كي يبصر معها سو نين اللي هاي أو ماشى لو هاي استمع وريا هوي واو مركب واقع نبتقلي وريا وسكع عشان يعني نبتقلي أنت وات هاي أنت عنو جبت وريا حبيت دم أصل فقرينا استياري وات قبل أكون في الصحف قبل ساعة من الفراق قاد وريا لما تنجو يا وسعدي سم وسلام وهورتي وسلامي واسكوي كفتر باسكال لكن واحد جيل ضد واحد جيل لك وحنا قار واركي وحنا كفتر باسكال ما بعد كي درت انت جاي اسك ديارده قالي هذا شاكو كلا سو سعت الظاهر واللي يراهدو من عبد الله عثمان اللي يراهدو وراء هذا كي جوجو ايا ودا حمر كنا قرر مردو نو ما ربا دو الله يدبو شاكده وحال هذا دولتوس ciidan oo uu ku sameeyay guriga saddex wuxuu ku waayay afayeen dawladda ka tirsan xaaskiisa idinka inta sheegad han biqlaysto anigu meelaha koraan ka ciyaara meelaha hoos kama ciyaaro idinka afayeenadii waxaas ka raaca anigu waxaan ku sheegi ani tuugadaas ay muuqato dalkay dadka Soomaaliyeed iibinayo waxa weey waxaas kaleeto waa iska arimo hoose adiga Cabdullaahi Ismaan Faarax iska garaaca waanu ma diido dimuqraadiyadda waxa doontaan waxaya laakiin wariyada farmaajaha la socotaan firgaajo moogi ka leexda wariyaa idil farmaajo wariyaa siyaasi ta madaxweynaha ka dhigano idil afiican idil ku bedelayna wariyaa
idinaan ku bedelaynaa farmaajo yah gabagabadii waa ku fasaxaya hal su'aalaan ku weydiina sporting sida isku tihiin adiga aniga waxaan ah barcelona wariyaa barcelona ha barcelona ah saddex ciyaartoy ma ka garanaysaa barcelona barcelona messi aan ka taageeraa messi bis ha messi aan ka taageeraa anigaas laacibka ah soo wado kooxaha dalka ciyaarna elman aan ka taageeraa elman ha gaadiidka taageeraa kooxda gaadiidka elman dib soo gasho waxaas waa ogta wala horta habeenka ma xasartay aan ku iri niyo Chelsea iska jooji niyo habeenka aqanas ku Chelsea saan way gurigeedii adhiman sida loo galay Chelsea iyo martagi kugu dhacay iyo waalid kugu dhacday oo kugu qasabtay inaad Saacid Siman iyo kooxeeda ku mashquusho ma ogtaa wariyaa tax kugu dhacay ما سعد سيبه هبريرتي لكن كباه أوجد لا كباه أوجد هذا كباه أوجد ما يا هبينك جلسي ليراي ما حكوا سعد سيمن كوكي وهي فضيحة الله بدا في بيل كلينتون مودي كل ولدتي لهبينك يقصوا بحد الفضيحة دي وده إلى خلا قراءة كلا المدة في أفغانستان بدأ في على وطول لا صدق الجو كباه هالجو كباه نيروبي لقوا حدي هذا كل اللي قبل هذا حدي أنا ما قاعد شيء وغصب مرود وحما حضه مرود وحوي واناف هذا وحي است افريكا دم ما مشى مرودي فوضى مرودي يلا سو شيء انت مالك ka soo dhamaatay ayaad halay soo doonatay marna gabadheedii laacaysa waxaasna waxa keenaya habeenkii guushi guuldarada ku dhacday Chelsea dadteed ayaa kugu qasbaysay inaad geedaha kora fuusho marka marwada iyo gabadheedii ka leexo shaqadaada wado وبالله توفيق هبق ليش دبيش كده ومر رحت عليه عيال سيسو نبدي ما جت تاجرسن وكودتك وكود عينا دد بدل كود عينا فما جت لا كوي كاشار بعتير وحو قلايو خو غود مله habartii la shabarkay dhaleysay habeenka inay hambiya foolatan loo qaat waa baasantahay madaxweynaha Kenya dhulka la dhisay waa la joojiyay hadan ku shay wararka ugu dambeeyay waa salaamatina qaarta qiimaha